xigta waxaan weydiinayaa Sheekh Maxamuud waxa uu leeyahay saa'ilku waxa magaaladan iyo magaalooyin kaleba ka jira shirkad la yiraahdo Tianis shirkadaasi waxay sheegaan inay markaa hawlo caafimaad ay bulshada u qabanayaan waxyaalo kale oo ku dhex jirana waa jiraan marka shirkadaas maxay ayuu sharcigu ka oranayaa bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli ala muhammad shirkadani waa shirkad cusub ee magaalada ku tahay baa laga yaabaa waa shirkad soo martay meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ilaa galbeed ka soo bilaabatay ilaa iyo carab soo martay ilaa iyo afrika soo jiidhay malaha iminka inagana soo gaadhay dawada bixinaysa ee qofku $25 buu isku diiwaan gelinayaa kabacdina $200 buu siisanayaa dawo kadibna wuxuu keenayaa macaamiil ilaa 4 qof ah halkaas waxa uga bilaabanaya xogaa khidmad ah mar walba dadku sii kordhana xogaagiisu waa kordhaya isaguna shirkadaasi waxa caalamka luqada carabeed loo yaqaanaa sharikaatu taswiiq al-harami shirkad التسويق الهرمي أما شركات التسويق الشبكي هذا دي منك أدرته انترنت كجوجلها وكوسو صار يا مركبة علماء الإسلام كوي كهد لين وديجا مدن وحاودوا أو عشد وير لقى هاد لي ندودي كد عضي قبل كان نقال المقال هذا جروه علماء ضوي كهد لين فتوى لقى صو صاري هيئة كبار العلماء ويكهد لين مجامع فقهه ويكهدلين لجنة الإفتاء ويكهدلين ميلها مركبه الرئيسي يرد ومطي مصر باكمدة السودان باكمدة عربا قاركود بقول ومطي مركب دم بوركي دوال فهمي إن أيتها شركة برعطة ومعان كويدا هذا أمدا ما في ولا عيسى دور قضبنا وكتشرا بيعيدو يوحيب سجيدو ربا أيا كتشرتا خيانة كتشرتا غرر با كتشرا أكل أموال الناس بالباطل با كتشرا انت أفر تاقضب علماء ويكوشيغين سفي عنبا وحاوغهد لي هيئة كبار العلماء وسفي عن وغهد لي فتوى ديدا ووح مسجل وقرن علماء أي كهد لين وحاول لنا دادك كشقيا أما دادك لغايا أبو إني وحكا قاتان haddii ay dadku waa dad muslimiin oo diin jecel haddii ay aqoon ahaan sharciga si fiican u garan lahaayeen masalada way ka tawaqufi lahaayeen laakiin Soomaalidu waxay tiraa xalaal iftiin baa la qashaa caawaleerko daaran baynu qalnay shirkadii warkeedii waxay la tahay ninkii gudcur ku cantuugay isaga u taalaa laakiin gleerko daaran baa warkeeda la qalay inta wixii ka faahfaahsan qofkii raba inuu akhristo wuxuu ka قالي كرا فتاوى علماء كسو صارتي شيخ شبيل واكهل لفتيسو علماء شيخ عبد الناصر باكمده شيخ محمد حاجي يوسف رجع علماء الندوه كقبتي ماشي الله قبل كانه قال يدو مسجل وضوبن يدو قرال ويت الله هيئه كبار العلماء قد ادريسا انترنت ك شركات التسويق الهرمي اما شركات التسويق الشبكي فتوى ودن با كوسو بخيسا waxaan leenahay عفى الله عما سلف wixii hore ee tigay ilaahay dhaafo wixii dambana waxa jirtay waagi waxa jirtay oo manuu hawdku ahaa ayaa waxa loo aroori jiray waasha oo 2 bilood ba 4 cisho ayuu dhixi jiray dhaanku labana waa sii socdaa labana waa soo socdaa nin daalan oo awrkii dhaanka intuu keenay haamihii wali aan ka rogin oo aqalkiisa soo taagay ayaa waxa dhacay in uu arkay aqalkii oo kala soo baxayo nin dhiishii yarayde odaga caanaha lagu shubi jiray raarta aqal kala dhigi jiray oo tuuga war ii dhig markaasuu iska sii daba sii daayay waa cayrsado waa gaari kari waay nafti waa isugu timi ninkii markaasuu warooy hooy war wixii war caanaha mawtadii baan u sadaqaystay war dhiishii halkaa ii soo dhig
وهو قاري كريواي وعلينا مركا وحي تجي عفى الله عما سلف إلهي سبحانه وتعالى نقص سامحه